Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago xogo ku saabsan barnaamijkan cudurkan dunida ku faafay oo la yiraahdo coronavirus. Sidaa wada ogtihiin waxaa xaalad degdeg ah ku jiro wadamo badan sida Talyaaniga, Spain iyo qeybo badan oo Mareykanka ka mid ah iyo Ingiriiska oo aad ogtihiin wadooyinkii waaweynaa dhan wada xiran. Marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago wadamadan dhibaatada badan haysato oo reer Yurub u badan waxyaabaha casharada aan ka baran karno inaan la wadaago dowladeena Soomaaliya iyo shacabkaba. Sida wada ogtihiin cudurkan markuu soo bilowday dabayaaqadii 2019 wadanka Talyaaniga dhibaatada oo u sababtay in dhibaatadan ku qasbanaado waxay ka mid ahayd dhowr qodob oo ah in wadanka markii ugu horeysay uusan haysanin xogo ku saabsan cudurkan iyo kurtuurtaano la isla wareegaya in cudurkan uu wadanka dhibaato saas aanan u geysan karin sida siyaasiyiin badan ba ay sheegeen in dhaqaalaha sidiisii ahaan doono ganacsiyada aan waxba iska bedeli doonin. Taas mid la mid ah hadda wadanka Soomaaliya haddaad fiiriso waxaad arkaysaa in cudurka ilaa hadda xog muhiim ah aan laga haynin oo ay sheegay ilaa dhowr kiis maadaama dawladda ay sheegtay laakiin aanan xog fiican oo sax aanan haynin. Talyaaniga cilada kale oo ka caawinayo waxay ahayd oo sidaan u gashay in xogtii la siiyay aanan si sax ah aanan loo dhaqan gelinin aan record fiican isbitaalada sameeynin hay'adihii dawladda aanan dukumeenti fiican ka diyaarsanin si ay ula dagaalamaan cudurkaas. Qodobka kale oo Talyaaniga caqabad ku noqday mise wadamada Spain oo kalena dhibaato badan ku sababay in cudurka wadanka oo dhan ku faafo waxay ahayd in ay qaateen xalal oo aan guud aanan ahayn oo xal oo qayb ka ah yani tusaale waxaan ula jeedaa xal qayb ah yani haddii cudurkii meel laga helo in dadkii laga helay yani sidii la rabay aanan loo karantiilin qayb ka mid ah la karantiilo qayb ka mid ah la iska sii daayo taas oo sabab u noqotay in cudurkii wadanka dhan oo ku faafo magaalo kasta uu tago. Sida hadda aan la socono wadamada ugu daran cudurkan ku faafay waxaa ka mid ah aan sheegnay Talyaaniga iyo Spain iyo Mareykanka oo hadda kaalinta koowaad ku jiro. Marka taas waxaa u sababtay inay xalalkii la rabay aanan hal mar wada qaadan oo marmar yani marba go'aano soo saarayeen. Marka waxaan rabaa dawladda inaan la wadaago in xal guud ay soo saarto oo wadanka dhan ku tadbiiqiso. Qodobka saddexaad oo aan ka baran karno wadamadan reer Yurub waxaa ah in aynan qaadan si wadamadii ka horeeyay sida China iyo South Korea istiraatiijiyadii ay qaateen inaysan ayaguna qaadadin oo xalal kala qaateen. Waayo haddii istiraatiijiyadii ay China qaadatay mise South Korea mise Singapore ay qaateen ay qaadan lahaayeen cudurkan sidaan ma u faafi lahaayeen. Marka maxay sameeyeen wadamadaas? Waxay sameeyeen wadamadaas istiraatiijiyadii ay sameeyeen bay wax ka barteen sida in la sameeyo tusaale haddaan soo qaato laba magaalo oo ka tirsan wadanka Talyaaniga magaalada Lombard la yiraahdo magaalada Ventona la yiraahdo waxay sameeyeen magaaladan Lombard la yiraahdo waxaa ku nool dad 10 milyan gaaray. Cudurku wuxuu asiibay dad oo 35,000 oo qof ah dhimashadu halkay ahayd ilaa 7,000 ay u dhinteen. Marka magaaladan kale ayadana Ventona la yiraahdo waxay sameysay ayadana in istiraatiijiyad bay qaateen laakiin istiraatiijiyada Ventona ay qaadatay waxay noqotay mid oo lagu guuleystay cudurkana la isaga difaacay. Dadka magaaladan Ventona ku nool waxaa waay 5 milyan waay halka cudurku uu asiibay 7,000 dhimashadan ay ahayd 287 qofna u dhimatay. Marka magaaladan Lombard Ventona maxaan ka baran karnaa? Ventona waxay sameysay markuu cudurku kow soo galay in xogo fiican ka diyaariso dadka ku dhacay cudurkan si gooni ah u baarto. Tusaale baaritaano waxay sameeyeen aad u waaweyn dad badan lagu baaray. Markay baarto cudurka dadkii laga helay dadka aan laga helin ay kala saarto dadkii laga helayna si gooni ula macaamisho ay karantiisho. Dadka isla xaaladaas aanan ka muuqan cudurkan astaamihiisin ilaa muddo ay kaga soo muuqanayaan ay meel ku hayso aanan magaalada ku sii deynin. Waa qodobka koowaad magaaladaas ay sameysay. Qodobka labaad ay sameysay waxay ahayd dabagal fiican. Haddii qof laga helo qofkaas waxaa la baarayaa dadkii u dhawaa dadkii qaraabadiis ahaa dadkii deriska ahaa intaas dhanaa la baaraa. Haddii intaas la baaro oo dadkii u dhawaa dhan la baaro waxaa u sahlanaanaya in xog fiican la diyaariyo dadkii cudurkaas ku dhacayna si gooni loola tacaalo. Qodobka kale ayaga sameeyeen ba waxay ahayd
waxay tagayaan guryaha oo dadka ugu tagayaan guryahood si guriga looga soo qaado yani dhacaankii ama waxyaabihii la baari lahaa bay shaybaar geynayaan. qofkii isagoo gurigiisa jooga waxaa la ogaan karaa in cudurkan uu qabo iyo inuusan qabin. taas faa'iidada ay leedahay waxay tahay in qofkii uusan isbitaal tagaynin mise xarun kale uusan tagaynin oo gurigiisa ku ekaanayo meeshan lagu karantiili karo. taasna waxay noqotay istiraatiijiyad ay ku guuleysteen. qodobka kale oo aadka muhiimka u ah ayagana ku guuleysteen waxay ahayd in meelaha laga dukaamaysto sida supermarketada, dukaamanka, suuqyada in ayagana si gooni ah dad shaqaale ay u sameeyaan oo meelahaas controlay shaqaalaha ka shaqeynaya caafimaadkooda ka warqabaya. tusaale haddii wadankeen oo meelo oo laga adeegto saas ay jiraan dadka ay wada tagayaan in ayagana taxadir gooni ah ka samaystaan, ii sheeg shaqaalaha naftirkooda taxadiraan, cuntooyinka taabashada inta badan laga ilaaliyo. taasna waxay tari doontaa yani muhiimad khaas bay u lahaan doontaa shacabka iyo dowladaba. qodobka kale oo isigana loo baahan yahay in la ogaado oo magaaladan Ventona ay sameysay waxaa shaqaalaha caafimaad in si gooni ahaan loo daryeelo. tusaale hadda Talyaaniga shaqaalaha caafimaad inta ku dhimatay 50 iyo kasii badanaa ku dhimatay oo shaqaalaha caafimaad cudurkan la tacaalay. marka qofka cudurkan la dagaalama in aqabkii u baahanaa hubkiisii wixiisi loo dhameystiro caafimaadkiisna laga warqabo waa qodob oo aad iyo aad muhiim u ah aan ka baran karno magaaladaas oo cudurkan sida saxda isaga difaacday. gabagaba ahaan marka yani halka qodob ugu muhiimsan in la helo xog sax ah cudurkan ku saabsan. hadda ayaamahan waxaan social media ka maqlaynaa in oo badatay tirada dhimashada sida laga soo wariyay dadka oo qubuuraha qodaan in yani xaddiga awal ku socotay ka bateen. marka si xog sax loo helo dowlad inay record fiican sameyso, isbitaalada wargeliso, ii sheeg dadkii howlahaas ku lahaa dhan ay wargelisaa muhiim ah. waayo dowladnimada waxaa la ogaanayaa xilliga musiibooyin mis dhibaatooyin jirto ayaa baahideed la baran karaa. inay dowlad wax tarays xilligaas unbaa la ogaan karaa. haddii ay dowlad haysato dhaqaale xumo mise budget xumo waxay uga baxsan karaan in budgetyadii fankii wasaaradaha kale ay lahaayeen in qayb ka soo qaado qaybta wasaaradda caafimaadka ku darto. taasna aad iyo aad ay muhiim u tahay. waxyaabaha kale muhiimka ah in oo wadanka dhan yani istiraatiijiyadiis wasaaradda caafimaadka si hoose ula socotana aad iyo aad bay wax u tari doontaa. intaasaan kusoo koobaya barnaamijkayga. waxaan idin rajaynayaa caafimaad badan. aad iyo aad baan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.